murashaxa golaha wakiilada xisbiga mucaaradka wadan iyo xubnaha golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle xisbigaasi ayaa shir ballaaran ku qabtay haweenweynaha degmada Woodwood. Shirkan oo nuxurkiisu ahaa sidii doorashada soo socota loogu diyaar garoobi lahaa shacabkana faham looga siin lahaa habka doorashada maadaama aan doorasho hore oo noocan oo kale ah ka qabsoomin deegaanka Woodwood. waxaana hadalladooda ka mid ahaa sida tan aad ma santiin soo galkiina mar labaad iyo saddexaad ba ninka waqtiga iyo haweenka ugu jirada aan ognahay ama aan dareemino waxaan leeyahay gacabna sirahan markaan ka shaqeynay arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada waxaan ka qayb galay ururo kala duwan guud ahaan gobolka Buuhoodle degmada Banyaal Dalaamo Cune Daboble Deer Balacad Woodwood waxaan noo soo baxday in degmadu aysan lahayn dhalinyaro ku hadasha afka deegaanka marka anuunka cabdinaasir ahaan markaan arkay ama aan yaqiinsaday ama aan ogaaday in bulshadu aysan lahayn qof ku matala ama afkooda ku hadla oo ku matala guud deegaan ahaan waxaan go'aansaday inaan soo shaqeeyo golaha deegaanka haddii ilaahay ma ballan qaadayo waxaan awoodin laakiin haddaan doorataan degmada Woodwood haweenweynaheeda qaybaheeda kala duwan maaha qabiil laakiin waa degmada Woodwood dadka degan haweenku waa codka ugu badan waxaan rajayn doonaa in waxqabadkeega ama riyooyinkeega ay ka mid tahay waxa weeye nadaafadda bilicda magaalada dhirbeerista in la hagaajiyo wadooyinka magaalada oo la qurxiyo in lagu xidho kaliya maaha degmada Woodwood laakiin Banyaal Dalaamo Cune Balacad maadaama aan ka rajayno cod aan rabnay in laga doorto waxaan ballan qaadanaa dhammaantoodba inaan si siman oo isku mid ugu shaqayn doono aan waxna la qaban doono intikraankayga haddii ay dhacdo dad badan baa sharaxan waxa codka maanta haya waa haweenka haddii aad kala garan weydaan qofka wax qabanaya iyo qofkan wax qabanayn idinka go'aan kale maanta caaqlo ma taalo qof walba ama fartiisu eedi doonaa ama fartiisu ku dooran doonaa qofkii wax u qaban lahaa marka waxaan leeyahay hore bay u dhacday in dad badan ay fartooda eedaan waxaan leeyahay fartiina ma soo saari kartaan fartiina ma ku noqon karnaa musharaxiinta dhammaan marshaqka halkan isugu timid oo salaamay ugu hore waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan waxaan idinka mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala celintiisa kadib kulanka aad soo ajiibteen oo runtii aan ugu talagalnay markii shaqooyin badan inoo soo dhammaadeen deegaanka shaqooyin badan oo laga soo qabtay oo ay ugu horreysay waxa weeyaan isdiiwaangelintii kaar qaadashadii iyo waxa weeyaan haddeer aynu howlo kale u diyaar garoobaynaa runtii inaynu waqtigan oo kale la iswaraysto marka marxalad laga soo gudbada waa idinka mahad celinay waxa weeyaan runtii sida hore laydinku sheegay ama aynu wada ognahay musharaxiin baanu nahay waxaan u taagannahay inaan bulshada runtii xilal u qabanno haddaan ugu aamintaan xilalka ummadda inaanu idiin shaqeyno gola deegaan iyo gola baarlamaan runtii waxaanu nahay wadani waxaanu isu aragnaa inaanu nahay bulshada ciddii ugu mudnayd ciddii runtii ay shaqadaas ka soo bixi lahayd halkan calaf looma soo doonto laakiin hawl baa loo soo doontaa runtii waxa weeyaan soomaalidu waxay tidhaahdaa rageela loo heesay waxaa la odhan jiray nina dhuunu kugu dhaadhacay nina dhaqashu kugu dhaadhacay nina dhuunu ku dhex jooga waxa weeyaan waxaan soo aragnaa ciddii ugu habbooneyd hawsha inaanu nahay waxa weeyaan inaanu bulshada dhex jecladeedii nahay ragga halkan jooga dhalinyarada gola kastaba hawsha raxnaadeen waa dadkii aad ku barateen inay bulshada u shaqeeyaan waa raggii aad ku barateen inay xashiishka iyo qashinka magaalada ka buraan waa ragga aad ku barateen inay bulshada arrimaheeda ka shaqeeyaan waa raggii aad ku barateen inay arrimahaas waxa weeye bulshada mar hari habeen u taagnaayeen ma aha dad aan maanta idin barayno khaasatan aniga ugu mataqaanaa malaha idan garanayna aniga inaan macduuc baa la yidhaahdaa ciidankaa uma ka mid ah
waxaan malaynayaa waxa weeye dadka qofkiinu isagu sheego waa laga qurux badan yahay waxa weeye waa hadda waa intiina garanaysaana waa cabdeen maxamed wuxuu la yiraahdaa intaan garanay loo jeedo macna intiina garanaysaa runtii anu waxaan sharaxanahay xubin gala deegaan waxaan runtii markaad aragto waaqica bulshadeena ku jirto wadada kaliya laga bixi karaa maanta waxaan u fahanay inay tahay inaynu farteena ku codayno kula soo baxno ciidaynu jecelnahay dabcan aynu aragnay inay bulshada matali karto iskagana cayrino cidda aynaan u talagelin maaha cidaynu jecelnahay laakiin cidda aynu ku talagalnay inaanay bulshada waxba inoo qaban karin aynu aragno inaynu iska dhinacsiga leexino ciddii wax qaban kartana aynu soo dhaweynaan baa fartiinu ay u idman tahay ciddii isdiiwaan gelisay hawshaasi mar walba maanta ugu fududa waa fursad waa jaanis maanta aynu haysano ay adagtay 5 sano dambe inayna soo marto ama 6 sano dambe أنا حتى سؤالكم كمان سؤال كبير جدا صحيح بدي تشرح أنا مسؤول عن إنه أنت هاي الكرسي أنا مسؤول عن مقدمة أنا عايز أقول لك كرسان يمكن إن أنا موجود دورة الحكينا سأنا موجود في المباحيها ما موجود أنا أساسي هم يجي موجود وهذا الكل يجي يمكن أنت الكل قبل عن شيء والرضا هواك أنا قربت هذا الكل وعرفت كلات أنا قبل أنا وغاها عم درسنا هنا يجين أقول كذا تبعت لي الشم إن البشرة ككومين أيها سلبي يجين الملح يجين حاسنا على الموسي يقيسنا هاي ونقول كسر هاي جوكتو هاي كل تضد يا ريا طبعا وضع أيوب والشكلية طبعا إحنا تعالنا يعني مركز قربت حنودو كل شركة وسمات كانوا ككومين إن الأكيد نصيصان نقول دورتان كرتنا عمولا هاي نحن طبعا أقوم أقول لهم أنت إذا عندك جوتين أنا خلاص أنا كش غير ربنا يبدأها بالشدة يا عروتنا يولدنا وحدنا إن نجرّنا كل كسرنا وحنقولنا اللي أنا بصعنا خلاص أيام كانتين أنا بستهان نقول لهم وقت كي يجي نكسرنا هذا وقت كا كورونا وحنا يدور عليه إن أنا بس بها عندنا أنا كلاي كتنبيه هذه هذا ودي سلامة hamiga degmada waxay ku noolahay magaalada Woodwood inta tuulo ee hoos yimaado waan ka warhaynaa haddana xaaladda degmada Woodwood aynu joogno way dul istaagi karnaa qodobada lagu kalifay inaan isu soo sharaxno golaha deegaanka qodobka xagga waxbarashada inaynu loo ka naadaan ku hooseyno marka gobolooyin kale la tartamayno inaynu meeqaam hoose kaga jirno oo isla dareemayna lambar 2 caafimaadka waa labada cudud ee Soomaaliya bilaadanku ay ku kala dhaqaan waa caafimaadka iyo waxbarashada inta soo raac iyo biyaha waan dareemayna degmada Woodwood maanta xaaladaheeda waa ka warqaano degmada mikrofon ka sheegaya maaha hadday tahay xagga waxbarashada hadday tahay xagga caafimaadka iyo hadday tahay xagga biyaha inta waxa soo raaca deegaanka saddex kaliya waa cudud laakiin wuxuu u baahan yahay waxqabad dhab ah waxqabadka dhabka ah wuxuu noqon doonaa waa in su'aal isweydiinaa war maanta maxay u baahanahay xageeynu soconaa yaa wax noo qaban kara hamiga aanu leeyahay intee u noqon doonaa waa su'aalaha qof kasta oo shakhsiya oo deegaankana inuu ku hamiyo su'aashaas weydiinaysa waxay tahay deegaanka xaaladdiisa maanta waa ka warhaysaan kulley siyaasadahan ama doorashadani way ugu noqonaysaa musharaxiintu waa jiraan golaha wakiilada golaha deegaanka waa loo taagan yahay haddana qof kasta dee hami iyo waxba ku socdaa idinku maanta waxaa tihiin waxa kaliya ee deegaanka wax ka bedeli karaa waa bulshooyinka ku dhaqan degmada Woodwood waayo qof kasta maanta wuxuu leeyahay aragtidaas oo xaaladda deegaanka uu ku jiro yaa wax ka qaban kara sayaan wax ka qaban karin su'aashaas inuu ku noqdo waayo qofka maanta fartiisa ay ku xiran tahay iyo mustaqbalka deegaanka waa bulshaduna waa cudurda kaliya ay wax ku kala dhaqaaqi karaan musharaxiintu codsi badan bay soo gudbiyeen oo haddeer aan ahayn oo ma hora haddana waa isla meeshii codsiga weli uu taagan yahayo bulshadii kaliya aan u soo istaagnay aan waxqabad istusnay waa idinka waa halbowlaha kaliya aan ku dhaqan karna waxay tahay bulshooyinka ku dhaqan degmada Woodwood waaxigeeda iyo meel gobosho kale ay tagaan waxaa maanta haysana waa far
maanta eersan maysan xildhibaano eersan maysan birito caaqilo dalmari iyo qorshayaal sidan iyo sallallahu alayhi wasallam hooyooyinka iyo hablaha stage saddexaad ma leedahay horta hooyo iyo hablo wax u dhaxeeya ma jira ma maranaya iyo xildhibaanada golaha deegaanka xisbiga wadani bahda saxaafadda howlwadeennada hotel Sarax dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh بعد السلام وحان كفر أحسنها هاي سيدا شرفت له قيمها له أتكيسي له تلميذ له أدوغو أتكيستين إلا يمان تنسبتان وبدكيني كتمادان نودو القادتان إذنكو أودونيا إنا دقيستان فرينتا آنو قدبين إلا إسنا ويدينيا لإذين يريتلو محال السلاح waxaa in badan la isweydiinayaa warqoladii kulmiye waa kuwii biyaha qaybiyay dadka wax taree kuwii wadanina maxay inoogu yeedhayaan marka insha Allah tacaala waxaanu idinku yeedhaynaa oo koobanna waxaan rabaa inaan idin sheego waxaan rabaa inaan ka horreysiiyo ma ihi qof isu kiin sharaxaya oranaya waxaasaan qaban doonaa saasaan yeeli doonaa waayo qurbaha kama iman haddana kuma baraarugin waxu qabadka bulshadayda ilaa iyo maalintan isboortiga ahaa waxaan ahay shakhsigii ugu horreeyay ee tiim meel kale ka yimaada wudwud uga yimaada anigoon hadda weliba reer wudwud asli ahayn oo ku kacaamin tiim wudwud meel kale uga yimaada soo kaxeeya ee waxaa la yidhahdaa wudwud la ciyaarsiiya caafimaadka markii aan galayna maalin walba khamiista iyo jimcaha waan iman jiray marmarna waaba idinla shaqayn jiray berigii dambe bax caafimaad oo kala deegaanka timiyo reer wudwud in badan baan aqaanay markaas ay xidhaan no halkaas ay idinka jaban oo halkan ay idinka anana meesha faa'iidada kuma naaqabin waxaan islahay war dadka ma garanaysaa tabaalaysan waxa la yiraahdo u daneeya maalintii baanu iska tagnay waxa xigtay la idin darsay kaala iyo tanaa dhacday hadafka iyo ujeedka anugu shakhsiyan aan ku shaqeeyo waxa weeye halka maxaa ka banaan oo la qaban karaa maanta alxamdulillah rabbil caalamiin gaabkii caafimaadkuna wuu inoo buuxsamay waad aragtaan kalkaaliya sida u shaqaynayso MCH-kii iyo habliheen sida u shaqaynayaan mar baan wudwud jirin cid wax durta ama mudda taasna dad baa ku soo tabcay ee kuwii cisbitaalada inoo dhisay iyo kuwa MCH-yada inooga shaqaynayaba waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran ilaahay idin barakeeyo runtii waxaan rabaa inaan halkan ka raali geliyo hablaha MCH-ka oo dhalinyaro innaga ka mid ah ay Facebook-yada iyo wax ka yiraahdeen waxaana dhammaanba deegaanka u sheegayaa cid kasta oo shaqo u haysa dadku ama waa la saarnaa ama waa la'aan ummadeennuna qofkii bulshada u shaqeeyo bay maagtaa haddaan gurigayga iyo masaajidkayga aanan u dhaxayn cidi soo qaadaysa iyo cidi maagaysa iyo cid wax iga sheegaysa toona ma jirto waxaan intaa ku darayaa dhammaan dadweynaha reer wudwud rag iyo dumar intaa maadaama aan isu soo taagay inaan siyaasadda uga qayb galo wax allaala wixii wax iga sheega maanta laga bilaabo waa cafis oo cid wax loo raacaa ma jirto waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa nin durbaan qaata ilaaq dalbay qofka siyaasiga ama doonaya inuu ummad bedelo ama wax bedelo waa qof arka waxaysan bulshadu arag maadaama aan arko waxaan bulshadu arag doonayo hadaf hadda aan la arag inaan gaadho waa inaan adkaysigiisii iyo tamartiisii iyo dulqaadkiisiiba la imaada waa inaan kayga soo horjeeda qanciyaa ka taageersan tixgeliya